Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha ugu mahadceliyay dadaalka dheeraa ee u galeen isku keenida bulshada reer Galmudug sidoo kalena sheegay in shirkaani uu gogol xaar u yahay dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo ka shaqeynaysa danaha reer Galmudug kana qayb qaadata horumarka guud ee dalka. mudane Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Galmudug Ali Sunnah dhammaan bulshada reer Galmudug ciidamada amniga sugaya iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in geedi socodka dhismaha Galmudug dhamays ah la soo gaarsiiyo heerka uu maanta marayo waxa uuna shirka u rajeeyay in uu guul ku soo dhamaado. shirkan marka oo isugu yimaadeen hormuudka reer Galmudug oo dhan waxaan rajeynayaa inaad dadkiina uga faa'iideysaan una horseedaan horumar. annagu waan soo shaqeynay halkan aan soo gaarsiinay macnaheeda ma aha laga bilaabo hadda in la leeyahay dawladdu maxay shirka ka qabanaysaa laga bilaabo caawa qof walbo halkan fadhiya mas'uuliyad ayaa ka saaran sidii shirkani u najixi lahaa dib u heshiisiintu u dhammaystirmi lahayd dawlad goboleedkii halkan laga sheegayo qof walbo soo istaagayna ku salaysneed furfurnaanta iyo cadaaladda iyo hufnaantana looga dhisi lahaa. waxaan rajeynayaa in shirku inta uu socdo iyo inta dhismaha Galmudug ay socoto inaan fahmi doono in haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqeyso midnimo iyo dawladnimo in horumar la gaarayo sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqeysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taagana. waa run qabiilaan kala nahay laakiin qabyaalad inaan ku shaqeysano ma rabno. waxaa la hubaa in ku dhowaad 1000 qof ee halkan fadhiya caawa rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel haddii ay qalbigooda furaan isku duubmaan isu tanaasulaan iyagoo u tanaasulaya mustaqbalka shacabka reer Galmudug una fahmaan horumarka shacabka reer Galmudug inuu ku xiran yahay horumarka shacabka Soomaaliyeed in horumar weyn halkan uu ka imaanayo. shirweynaha ayaa inta uu socdo waxa ay reer Galmudug ugu tashanayaan dhismaha dowlad goboleed Galmudug iyo qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo horseeda in maamulka ay dhisanayaan uu noqdo maamul ku hogaamiya wadada horumarka iyo xiriirka wanaagsan ee leh dawladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa bishii June ee sanadkan waxa uu deegaanada Galmudug ka bilaabay dadaal gundhigiisu u ahaa ka guulgaaridda geedi socodka qorshaha reer Galmudug ay ku dhisanayaan dowlad goboleed dhamays ah oo loo siman yahay waxaana dadaaladaasi soo dhaweeyay beesha caalamka reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan.